qaabka koowaad marka waad badeeco ku iibin kartid waa inaad kaash ku iibisid oo aad qofkii lacag cadaan ka qaadatid markaad ku diiwaangelinaysid marka barnaamijka QuickBooks waxaad tagi doontaa insha Allah halka ay ku qoran tahay customers kadibna hoos ayaad usoo degaysaa waxaad imaanaysaa enter sales receipt meesha ay ku qoran tahay click ayaad ku siinaysaa halkan uu ku keeni doonaa marka halka ugu horeysa markay ku qoran tahay customer job waxaad gelinaysaa qofkii aad badeecada ka iibisay ama aad alaabta ka iibisay customerka magaciisa marka as always sidaan la socono يعني wadamadu isku mid maaha Soomaaliya oo kale hadda marka aad joogto aad ganacsado tahay dabcan waa dareemi kartaa qof hadduu alaab ka iibsado يعني ma dhihi kartid magacaaga ii sheeg يعني qof wax ku dhigi karaaba simply magacaaga maxaa ka rabtaa so simply waxba qofka magaciisa ma weydiinaysid haddii uu markaas waa qof customer oo macaamiisha oo kugu xiran oo hore uga diiwaan gashanay oo aad ugu diiwaan gelisay barnaamijka QuickBooks يعني halkan baad gujinaysaa kadibna tusaalaanada inaga Cabdikariim Xasan iyo Axmed Cabdinuur iyo يعني waa customers inooga diiwaan gashan barnaamijkan inuu ku diiwaan gelinayo يعني macaamiil inoo haayo ganacsigana ku xirnaa way marka qofkaas oo kaleeto is okay halkan baad gujinaysaa kadibna waxa way waad soo dooranaysaa laakiin يعني sida badan waxaan ognahay qofka hadduu yahay qof cusub oo customer ma dhihi kartid magacaaga ii sheeg laakiin wadamada qaar oo kale fududahay qofka adan xataa weydiinin baa xogtiisa heli kartaa laakiin يعني هذا رو كلتو ما sensitive ما مركو نسكيو سوونينا simply halkan wuxuu kugu sheegay marka sales nooga waa يعني transaction kii koobaad dhacay sidoo kale date kaad qofka wax ka iibisay